bal ka waran haddii aad heli lahayd cunto kariye mar kasta u diyaar ah inuu kuu sameeyo cunto xilli kasta oo aad u baahato sidoo kale bal ka waran haddii aad heli lahayd qof mar kasta diyaar u ah inuu kula sheekaysto isagoon haba yaraatee kaa caajisahayn ugu dambayna inaad heli karto adeege ama gacan yara kuu qaban kara wax kasta oo u baahan tahay in lagu keeno ama lagu qaado dhammaan qodobadaas waxa kuu qabanaya maaha ibnu aadan laakiin waa robot ama mashiin u shaqaynaya sida ibnu aadanka waxaanu markaasi kaga hadli doonaa barnaamijkeena maanta 4 mashiin ama 4 robot oo kuu qabanaya shaqooyin xiiso leh oo ay kamid yihiin kuwa aynu soo xusnay ee soo dhawaada saaxiibaya salaamu calaykum magacaygu waa Sakariya Faysal Calaf ku soo dhawaada toddobaadkan iyo barnaamijkeeni ma ogtahay ee shirkadda Muraas oo aynu kaga hadli doono 4 mashiin ama 4 robot oo aanad rumaysan karin inay jiraan robotku waa mashiin awood u leh inuu ku qaban karo ama u fulin karo shaqooyin ay adag tahay in qof ibn aadani qabto ama sida oo kale uu qaban karo shaqooyin ay dhowr qof oo kala duwani ay hal mar qaban jireen robotku waa mashiin lagu programiyay computerka kaasoo aan marnaba daalahayn robotkeena koowaad waxa la yiraahdaa Molly robot waa mashiin awood u leh inuu ku samayn karo cunto ali cuntadaadu baahan tahay xilli kasta oo u baahan tahay si kale mashiinkani waxa uu noqon karaa adeege ama cunto kariye dhameystiran oo goor kasta ku karin kara cuntadaadu baahan tahay isagoo ku buuxinaya booskii cunto kariyaha ama adeegtada robotkeena labaad waxa la yiraahdaa digit waa mashiin ku qabanaya inuu alaab meel kaaga qaado sida oo kalena meel kale ku geeyo isagoo haba yaraatee aan ku dhigtoonahayn mashiinkan oo ah dad u eke loo sameeyay inuu si fudud u dhaqaaqi karo dhan kasta oo u baahan yahay kuna qaadi kara alaabta meel to meel robotkan ayaa waxyaabo cajiibka leeyahay waxa kamid ah inuu ka firfircoon yahay kuwii hore loo sameyn jiray isagoo mari kara meelaha rafka ah ama qarfa ah si fudud isagoo alaab ku sida ama kaaga soo qaaday meel mashiinkeena saddexaad waxa la yiraahdaa Piper waa robot awood u leh inuu dhexgali karo bulshada mashiinkan ayaa waxa uu awood u leeyahay inuu aqoonsado wajiyada iyo dareenada aasaasiga ah ee qofka mashiinkan ayaa waxa uu ku hadlaa ama gudihiisa ku jira 15 luqadood oo kala duwan oo dunida ka jira sida English, French, German, Italian iyo qaar kale isagoo oo awood u leh inuu kula sheekaysan karo sida dadka caadiga ah isagoo mar qura ka daalahay robotkeena afaraad ahna kan ugu dambeeya waxa la yiraahdaa Smart Seagull waa mashiin u qaabaysan sida shimbirta una farsamaysan sida shimbirta haadka adagta waxa lagu talagalay in lagu ururiyo xogta lagu qaado sawirada isla markaana wax lagu duubo mashiinkan ayaa shimbir caadi ah marka ay ka fogtahay taasoo duuli karta xawaare aad u badan isla markaana lagu talagalay in lagu helo ama lagu soo ururiyo xogaha meelaha la doonayo in la basaaso ama xog rasmi ah aan laga hayn iyadoo waliba ku duulaysa joog aad u sareeya haddaba daawade 4 robot ee aynu soo sheegnay kee ayaad is oran kartaa waqti xaadirkan imika waa ka kugu haboon inuu ka qabto shaqo kugu culus ka aad jeceshahay inaad heli lahayd si uu kaaga qabto hawlaad jeclaan lahayd in laga fududeeyo faalada hoose noogu soo qor adiga oo mahadsan